waxaan Cabdiraxmaan su'aasha ugu horeysa ay tahay bal Imaam Axmed Gurey halkuu ku dhashay goortu dhashay goormay ahayd barbaaridiisa sidee ahayd Imaam Axmed Gurey magaciisa oo saddexan magaciisa waxa la dhahaa waxa weeyaan Axmed bin Ibrahim Al-Ghazi Axmed bin Ibrahim Al-Ghazi erayga Ghazi waxay ka dhigan tahay ninkii duule waa macnaha waa sifa waa tilmaan isagu ma aha magac waxa kale oo ay la dhahaa Axmed bin Ibrahim Al-Ashwal ayaa qolyaha carabta qaarkood ahaan ashwalna waa Gurey Soomaalidu Axmed Gurey bay tiraahdaa marka boqortooyadii dawladda xabashadu iyadu sidee ahayd waqtigaas xilligaas awood badan mid Italian mid kuwan boqortooyinkan yaran bayadna kamid ahayd xilliga isaga ah boqortooyada inta badan xilligii horta ee uu islaamku imanayay hore waxa geeskan Afrika ay diinta islaamku soo gaadhaysay waxa jiri jirtay boqortooyo Aksum loo oran jiray oo dhulkan Tigreega iyo magaalada Aksum iyo magaceedaba sida laga garanayo ka jiri jirtay markii imaaradaasi ka bacdi waxa xilka kala wareegay qolo la yiraahdo Zakwa dynasty ama qolo agaw ah ay hogaaminayeen oo asal ahaan ba garoondigoodu uu yahay niman Yahuuda marka xilliga ay Solomonic dynasty ay soo baxday ayaa iyo waxa isku beegmi doona ay isa soo gaadheen xilliga ay isa soo gaadheen Axmed Gurey xilligu dhalan doona ay ku soo beegmayaan marka nimankaas ayaa inay dhulka xaggan u soo dhacaan oo ay ilaa iyo soo gaadhaan shawa fiidaheeda soo gaadhaan nimankaas xilligaas ayay bilaabatay marka inta badan xagga ay ku koobnayd waxa ku jirta Garaad Aboon xilliguna waa qarnigii 16aad bilowgiisii marka garaadku ma garaadada aynu garanayna dhaqanka ahaaya saasun baa mise ma waagaas waxa loo isticmaali jiray marka 400 sano dib loo noqdo garaadku wuxuu lahaa goynta dagaalka iyo nabadgelyada iyo wax oo dhan isaga miyaa lahaa hoggaanka dhaqanka yani ma isaga lahaa horta magacan garaad hadda waa magac ay Soomaalida kaliya isticmaasho kuma inaan arag dadka kale qoomiyadaha kale ee dalkan hadda Itoobiya degay iyo geeska Afrika degay wax magaca garaad isticmaali oo Soomaali ka ahayn ma inaan arag taasina waxa ku tusinaysaa magacani inuu yahay magac ay Soomaali magac tilmaamaya maxaan ku dhahay xil marka maalmahan saad sheegtay buuq baa jiray buuq baa soo baxay la yiri buuga waan aragnay waa masaxan yihiin dadkii qoray maxaad macluumaad ka haysana buugaas muxuu yahay gaar ahaan halka Soomaalida iyo Anfarta iyo Orgobaha iyo marka meelaha uu ka warramayo ayaa buuq aad uga jira horta waan arkay buuga 92 baa inta badan uu kaga hadlay meeshaas laakiin buugaasi hadda waxaynan wax badan ba uga soo oran karin buugu ma aha buug la daabacay maaha oo hadda dhameystiran Dr. Cabdiwaasac oo kale sida laga soo guuriyay oo maaragtay baraha bulshada oo kale lagu sheegay Dr. Cabdiwaasac waa wasaaradda uu wasiir dawlaha ka yahay marka Dr. Cabdiwaasac wuxuu leeyahay wax wasaaradda ka soo baxay oo rasmi ah wax draft ah oo maaragtay hadda la ururinayo uu jira oo la wado laakiin wax rasmi ah oo ka soo baxay ma jira buu leeyahay marka mar haddii ay saa tahay waa wax fiican inaynu baraarugaas dadku sii baraarugsanaadaan oo ay ka sii digtoonaadaan in wax khalad aan taariikhdeena laga gelin